السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان أصحابتك كحيران channel كنا حلنا channel كسر دوادا channel كان وchannel أنا قلت رجلني مدة الصوماليات إني وقف إليستو برشة علم الساينسكا رنتي وchannel أنا قلت رجلني دمان ومدنا أي كفاية لستان مناسبة جرا وقط دمان أصحابتنا وحنا كعصرنا إني نقول لاون وحلي هذا لايك تا سبسكرايب تا الشركة بلانتينونا waxa la yiraahdaa markasta waxa la yiraahdaa waa line science as you want to ubaro science ka sida aad rabto waxaanu meesha idinku soo gudbin doonaa casharkeenu ugu horeeyay markasta mar labaad iyo mastaxaadna waxa idin leenahay hamoogaanina hana ka maqnaanina inaad weel u noqotaan xalana janaal haddana waxaan bilaabeynaa casharkeenu ugu horeeyay soo dhawaada asxaabta أصحاب تزوجي تابع واحد اللي هذا عشر كنا وهرية وحنو كهذا دونا حينو مادة حسابته رنتي حسابته سيدا يلسوعنا واحد اللي هذا ومادو مال الله لقفكم ماشى وتجو أرضية هذا شغالة هذا مال الله لماشى وتجو ومادة مركز تا واحد اللي هذا ضبطال رنتينا جنال كانوا حيلي أو فرنا حكم ده هاي عقبضة مركز أرضنا مادة حسابته خاصة أرضنا تبدأ جوجا waxaynu ka bilaabi doonaa sida la socotaan khiyaarta casharka ugu horeeyna waxaynu ka hadli doonaa numbers ma ka hadli doonaa numberskana waxaan kaga sii hadli doonaa waxa la yiraahdo aad buu furbadan yahay waxa channelkan sidoo kale waxa Ilaahay mahadiya oo noo suurta gashay inaan ugu talagalnay dhamaan jabtarada sida ay isu leeyihiin inaan idinku soo gudbin doono waxaan ka faa'iideysan doonaa dhamaan ardayda ha ahaadaan kuwa diyaarinaya imtixaanka waxa la yiraahdo dugsiga ugu dambeeya ha ahaato kuwa jaamacadaha dhigta waxaynu ka bilaabi doonaa casharkeena ugu horeeya ama unitkeena ugu horeeya numbers waxaynu ka hadli doonaa Ilaahay hadduu yiraahdo types of numbers noocyada numberada ay leeyihiin waxaynu ka hadli doonaa Ilaahay hadduu yiraahdo writing and reading of numbers sida loo qoro oo loo akhriyo tirooyinka waxaynu ka hadli doonaa waxa leedahay place and total value of numbers qiimo rugeedka iyo qiimo wadareedka tirooyinka waxaynu ka hadli doonaa waxa la yiraahdo ascending and descending orderska tirooyinka waxa la yiraahdo qaabka ascending and descending loogu qoraayo waxaynu ku hadli doonaa waxa la yiraahdo Ilaahay hadduu yiraahdo for operationska afarta xisaab fal baan ka hadli doonaa waxaynu ka sii hadli doonaa Ilaahay hadduu yiraahdo fractionska baan ka hadli doonaa waxaynu ku hadli doonaa waxa la yiraahdo decimaliska baan ka hadli doonaa sidoo kale waxaynu ku hadli doonaa waxa la yiraahdo square cube and cube roots baan ka hadli doonaa waxaynu ku hadli doonaa waxa la yiraahdo indices baan ku hadli doonaa sidoo kale waxaynu ku hadli doonaa logarithms baan ka hadli doonaa sidoo kale waxaynu ku hadli doonaa asxaabta qaaliga sariska baan ka hadli doonaa sidoo kale waxaynu ka hadli doonaa meesha aan ka maqnayn sequence and seriously waxa meesha kale aan ka maqnayn direct and number lines baan ka meesha ka maqnayn sets baan ka hadli doonaa limit of frequency baan ka hadli doonaa rate and ratio baan ka hadli doonaa complex numbers baan ka hadli doonaa sidoo kale waxaynu ka hadli doonaa matrix baan ka hadli doonaa yani intaas oo dhan waxa la yiraahdaa numberka loo yaqaano numberska casharada soo hoosgeli doonaa casharadana waxa la yiraahdo waxaan sii gudbin doonaa casharka sida ugu fudud ee waxa la yiraahdo إن شاء الله تعالى وأنا رجل ودرس وقف سهلان أرض لو فهسين كرو مر لوادي مرتاحة وحنا هم وقالنا هنا كما قالنا وهل النقطان حالنا جنان وحنا بلابي دونا ما أنت عشر كين وهو الريبين بلابي دونا أصحابته واحد لنا هاي كسر دوالا أصحابته عشر كين وهو الريب واحد لي هذا سيدا وجيتا واحد لي موضوع إنه واحد لي هو numbers وحنا كهل دونا 1.1 عشر وهو الريب والله يقانو types of numbers ما نكهل دونا laba nooc baan uga hadli doonaa waxa laga yaabaa marka aad dhiganayso maadada xisaabta inaad meel kala duwan aad ku aragto waxa rabaa marka ardaygu si kasta oo loogu dhigo in haba yaraatee mataqaanaa maskaxdiisu marna aysan ka maqnaanin tirooyinka noocyadiisa laba qaybood baan mataqaanaa tirooyinka u qaybinaynaa mar waxa laga yaabaa inaad aragto waxa la yiraahdo qaybaha kan waa arki ka dhaa markana meelaha kale waxa laga yaabaa inaad ku aragto qaybo kale insha Allah ta'ala sidaa u jeedaan waxa la yiraahdo waxaynu ka bilaabi doonaa numberska waxaynu ka bilaabi doonaa numberska tirooyinka marka waxa loo qaybiyaa sida kitaabadan ku arki karaan waxa laga yaabaa taan kitaabadu waa kala duwan yihiin laakiin inta qaab uu ardaygu u arki karo oo dhan baa waxa la yiraahdo waan soo qaadanaynaa qaybta ugu horeysa waxa la yiraahdaa waa real numbers oo tirooyinka waxa la yiraahdaa real numberska iyo tirooyinka waxa loo qaybinayaa imaginary yani real numbers marka la sheego waxa loo yaqaanaa waa tirooyinka real imaginary waxa loo yaqaanaa waa tirooyinka mala awaalka inta kaliya wama hadlaynay markasta aad aragto real numbers waxa laga yaabaa inaan markasta loo isticmaalo xarafka loo yaqaan real xisaabta marka shaqeynayso oo xalinayso marta waxa la isticmaali doonaa real baa lagu leeyahay real macnaheedu waxa weeye waa real numbers imaginary waxa la yiraahdaa waa tirooyinka imaginary
sidoo kale real numberska waxa la yiraahdaa waxa loo soo qaybinayaa waxa la yiraahdo rational and irrational oo loo soo qaybin doonaa rational marka waxa la yiraahdaa waa tirooyin kasta oo loo qori doono qaabka loo yaqaano a divided by b yani waa tiro kasta oo loo qori doono qaabka waxa la yiraahdo fractionka waa nooc kasta tirada hadii ay u qormato nooca loo yaqaano a divided by b tirada waxa leenahay waa irrational sidoo kale irrationaliska waxa laga yaabaa inaad waxyaalo kala duwan ku aragtaan sidoo kale nooca waa loo qori karaa decimaliska markii laga hadlaayo oo waxa la yiraahdaa irrationaliska 0.7 oo kale hadaa aragto tiradu hadii ay ka kooban tahay 1 decimal place tiradana waxa la yiraahdaa waa rational sidoo kale hadii aad aragto tiradu inay ka kooban tahay 0. sidoo kale hadii ay ka kooban tahay 2 decimal place na waxa la yiraahdaa tiradaasna waxa leenahay waa rational baa leenahay sidoo kale tiradu hadii ay noqoto waxa loo yaqaan repeating decimaliska tusaale ahaan oo kale tirado kale ha soo laalaabato hal god ha soo laalaabto oo calaamadaas ka dusha garanaysa ama laba godood ama laba tiro oo soo laalaabanaya hadii ay noqoto labada nooc marka hadii aad aragto tiradaas waxa leenahay waa rational waxa ku sheeganay waxa leeyahay waa tiro kasta oo loo qori karo formka loo yaqaano a divided by b yani waa tiro kasta oo loo qaban qaabka fractionka decimaliska hadii aan u tagno decimalisku hadii ay tahay 1 decimal place 1 decimal place waxa ula jeednaa waan ka hadli doonaa casharada waa u tagi doonaa yani tirada hadii ay kooban tahay markii noqdada la qoro hadii ay hal god meesha ay taalo tiradaas waxa la oran karaa tiradaas waa rational hadii ay tirada laba god ay taalo meeshana maxaa la yiraahdaa waa sidoo kale waa rational tirada hadii ay soo laalaabato oo repeating decimaliskana waxa la yiraahdaa tiradaas waxa la yiraahdaa lambarka soo laalaabanaya hal ha noqdo laba xaba ha noqdo saddex ha noqdo tirada marka hadii repeat ay sameeyaan tiradana waxa la oranayaa tiradaas waa rational so aan kale hadii lagu qoro 0.31256 وين فيرنا إمس decimal place وياه 1 decimal place 2 decimal place 3 decimal place 4 decimal place 5 decimal place يعني 6 decimal place ترى مركا waxa leenahay rational tiradaasi ma ahan waa irrational irrationalisku waxay noqonayaan tiro kasta oo aan loo qori karin formka loo yaqaano a divided by b ama waa tiro kasta bounty ay ku jiro bountygeedu way ka badan tahay laba god ama waa tiro kasta waxa la yiraahdaa oo aan sameeyay repeated intaas marka waxa la yiraahdaa iyadana baa loo yaqaanaa rational هذا rational waxa laga yaabaa marka akhrinayso kitaabada daraasaynayso kale in loo isticmaalo xarafka loo yaqaan q waxa loo isticmaalayaa markasta xaraf q baa loo isticmaali doonaa kitaabada marka akhrisanaysa imtixaanada gaagalaysan laftigeeda waa loo isticmaali doonaa sidoo kale marka rationalist marka waxa soo hosgelay tirooyinka loo yaqaan integers waxa loo yaqaan waa abiyoonayaashu weeyaan integers marka waxa la yiraahdaa laba loo qaybinayo waa whole numbers iyo kuwa loo yaqaan negative numbers labadaas loo soo qaybin doonaa wax la yiraahdo whole numberska iyo negative numberska irrationaliska iyadana yani allowing waxa badan ayadana loo taagayaa wax la yiraahdo calaamada loo yaqaano i calaamada i baa loo isticmaalay doonaa khaasatan markaas functionska markii la tago baa arki doonaa wax la yiraahdo iyadoo leetarada ama xarfaha la isticmaalayo r baa lagu leeyahay real numbers baa laga wadaa q baa la leeyahay rational numbers baa laga wadaa irrationaliska i baa loo taagayaa integersna markii laga hadlayana waxa loo taagayaa xarafka loo yaqaano z baa loo taagi doonaa إن شاء الله تعالى يباركونا. هذا whole numberska in negative numbers وتروين كنيجاتيف كمان هذا. هذا whole numbers كمركب واحد اللي هذا إذا لما لو قابلني وتروين كلها يقال natural numbers يعني وتروين قبل ما هذا 1 2 3 يبي حاجة كسيئة يزيرو. مركب integer هذا مقشو ترى مركب functions كلا شيء قيد إنه هذا مقشو ترى واحد اللي هو z هديله كلهم معناه واحد هو function كسي وحلا قادن كرا واحد اللي natural numbers ولا قادن كرا negative numbersna waa la qaadan karaa zero waa la qaadan karaa macnaheedu sida weeyaan intaas waxa la yiraahdaa waa qaybaha oo arki doontaan xisaabta marka aad daraasayn doontaan intaba waa arki doontaan sidoo kale waxa laga yaabaa marka xisaab daraasaynaysan inaad waxyaalo kala duwan aragtaan waxa laga yaabaa inaad aragtaan waxa la yiraahdo negative tirooyinkan sidana waa arki doontaan tusaale kale even numbersna waa arki doontaan oo waxa laga yaabaa ardaygu inuu weydiiyo haday qaybo la soo sharaxay noocan oo arkadaan tirooyinka waxa la yiraahdaa noocyadooda kamid tahay waa even numbers hadaba even numberska markasta waxa ku garanaysaa waxa lagu helayaa formula loo yaqaan 2n halka intu ay u taagan tahay waxa la yiraahdaa waa tiro kasta oo qaadan karo tusaale ahaan oo kale waxaan qoraynaa n baa wax inteenu tusaale ahaan oo kale waxa oran karnaa waxa la yiraahdo qaacidadana waxaan ku heli karnaa ishay even numberska qaacida loo yaqaan 2n
haddaba n waxa u qaadanaya tirooyin kala duwan baa n ta u qaadanaya tusaale kale n mar waxa u qaadanaya waxay la mid tahay baan leeyahay 0 n mar waxay la mid tahay baan leeyahay 1 n mar waxay la mid tahay 2 n mar waxay la mid tahay 3 n mar waxay la mid tahay 4 n mar waxay la mid tahay 5 inta doonta hal lagu siiyo haddaba tirooyinka ah even numberska waxay ku bedelan doonaa qaacidooyinkooda waxay noqonaysaa waa 2 oo lagu dhuftay ever waxay la mid tahay 0 waa 2 oo lagu dhuftay halna waxay la mid tahay 2 waa 2 oo lagu dhuftay laba waxa ay la mid tahay 4 2 oo lagu dhuftay 3 waxa ay la mid tahay 6 2 oo lagu dhuftay afarna waxa ay la mid tahay 8 2 oo lagu dhuftay shanna waxa ay la mid tahay 10 يعني تروينك هدي أي سيدة أو سقط نوعها هدي أو سقط ترى ده واحد أورنايا ترى ده سوا even numbers وزيرو لابا أفر ليك سدية طبعا لبيتون أفر طبعا إلا وحي حلقة ساوي سعونا يعني تروينك واحد ليه هذا و even numbers بالي هذا واحد ليه بقى إنه كلا عرفتان odd numbers كا وواحد إذا نلوي هذا يا 2n plus 1 وكلا قاعدة بدنا بالوصو صار كلا تصار هنا وكلا أنت اللي بنستعمالي دونا وكذا نستعمالي دونا واحد اللي هذا odd numbers كا يدا waxa loo isticmaalayaa 2n plus 1 oo kale baa loo isticmaalayaa isla inteedii baan ku mataqaanaa kaga shaqeynaynaa waa 2 oo lagu dhuftay ever oo lagu waa afwan halka waa ever maya waa afwan waxa leedahay waa 2 oo lagu dhuftay inta ahaysana waxa leedahay waa ever oo lagu daray hal yani waxa inoo soo baxay labada hadii la isku dhufto waa ever hal ku dar waa hal waa 2 oo lagu dhuftay hal oo lagu daray hal waxay la mid tahay labada markii la isku dhufto waa labo halka ku dar waa 3 2 oo lagu dhuftay 2 oo lagu daray hal waxay la mid tahay labada hadii la isku dhufto waa 4 hal markii lagu daro waa 5 2 oo lagu dhuftay 3 oo lagu daray hal waxay la mid tahay labo oo lagu dhuftay 3 waa 6 oo lagu daray hal waa 7 يعني تروينك نوعها hadii uu soconayso tروينka is dheer يعني hal 3 5 7 9 waxa leedahay 11 13 15 17 tروينka noocaas oo waxa leedahay waa odd numbers sidoo kale waxa leeyahay tروينka waxa laga yaabaa inaa aragtaan waxa laga yaabaa tروينka marka ay daraasayn doono waxa laga yaabaa inay aragno tروينka loo yaqaan prime numbers waxa leedahay waa tروينka imtixaan maxaa laga wadaa waa tiro kasta oo u qaybsami kara hal iyo nafteeda tiradu hadii ay labada u qayb halna waa u qaybsami kara nafteedana waa u qaybsami kara labadaas tiradu hadii inta u qaybsami kara waxa leedahay prime numbers tusaale ahaan waxaynu soo qaadanaynaa tirada loo yaqaano 1 hadii aynu soo qaadano tamam 1 waxa u qaybin karnaa 1 sidoo kale waxa u qaybin karnaa 1 yani tiradu waxa laga yaabaa prime numbers waxay ku noqonaysaa waa inay heshaa ugu yaraan laba qaybiye qaybiyaha koowaad waa inuu 1 noqdaa qaybiyaha labaadna waa isla nafteeda waa inuu noqdaa haddaba hadii aan hal fiirno hal waxa u qaybsami kara waxa loo yaqaan hal oo kaliya sida ajligeed waxaan leenahay tirada loo yaqaano hal ma ahan tiro prime waa ka saarinaa marka waxaynu soo qaadanaynaa 2 waynu soo qaadanaynaa marka haddaba 2 marka aynu soo qaadano 2 imisa u qaybsami kara 2 waxa u qaybsami kara waan leenahay hal waa loo qaybin karaa lafteedana waa loo qaybin karaa yani tiro kasta oo loo qaybin karo laba qaybsame leh hal waa inuu koowaad noqdaa tan labaadna waa inuu noqdaa wax la yiraahdo nafteeda marka tirooyinka hadii halka aynu ku qorno tirooyinka wax la yiraahdaa prime numbers ka 1 kuma jiro 2 baynu ka bilaabaynaa 3 baynu ku xisiinaynaa 4 hadaynu soo qaadano 4 waxa 1 waa u qaybin karnaa nafteedana waa u qaybin karnaa 4 2 na waa u qaybin karnaa yani saddex qaybiye bay leedahay marka waa ka tageynaa 5 baa kamid ah 6 laba u qaybsan karnaa saddex baa u qaybsan karnaa 1 baa u qaybsan karnaa 6 waa ka tageynaa 7 ayna ugu soo xigaysaa waxayna ugu soo xigaysaa 11 13 17 يعني تروينك نوعا صورنا واحد اللي هذا حاجة أبغى إنه يسوي دي وخصوصا درس سجال واحد قيسين كذا والله قيبين كذا سجالنا والله قيبين كذا صدقنا والله قيبين كذا يعني صدق حبيبي لا تسألات دي واحد لورنا يتردد سجال ما هن ترو برايم نمبرسا هديها أنت أول شيء تقول إنه واحد اللي هذا واحد كلو لقيه بعرض إنه أركو ترد الله يقانو composite numbers كواحد اللي هذا برايم نمبرس هديها فانتي واحد اللي هذا composite numbers كانوا فاهميسا يعني برايم نمبرز واحد اللي هو تركستو أو يران له هل ينفتي يعني تركستو والله ما قيل له واحد مش شيء واحد اللي هذا ترى سوا برايم نمبرز لكن ترى هدي أي لا ده هاي لما يوحي كبدن سؤال هذا وكله واحد سوق هذا هنا واحد اللي هذا أفر بين سوق هذا هنا أفر واحد نو قيمين كرنا 1 واو قيمين كرنا 2 واو قيمين كرنا 4 واو قيمين كرنا ما دام هل أيالتين لما واحد كبدن واحد لنا هاي composite numbers يعني تروين composite كواحد اللي هذا أفر
ولح وسديد وسجال وطبعا والنبي طبعا ترين كنوع عسى يعني تردوا هدي أي لذا هاي هل لبا قيسن wax ka badan waxa la oranayaa tiradaasi waxa leedahay waa composite numbers baa leedahay sidoo kale waxa laga yaabaa qaybaha xisaabta inaad ku aragtaan xisaabta markaad daraasaynaysan tirooyinka loo yaqaano square numbers square numbers waa tirooyinka wax leedahay laba jibaaran waxa lagu helaa markasta qaacidadaas waxa leedahay waa n power 2 yani n baa soo qaadanaysa power 2 baa la saarayaa haddii aan u laabano jadwalkeena haddii aynu samaysanay markasta n waxa ka dhigaanaynaa waa 0 mar 1 baan qaadanaynaa mar 2 baan qaadanaynaa mar 3 baan qaadanaynaa mar 4 baan qaadanaynaa mar 5 baan qaadanaynaa formuladeena waxay ahayd waa n power 2 hay haddii aan waxa la yiraahdo ever aan soo qaadano ever haddii dusha laga saaro 2 waxa la yiraahdaa ever haddii laba jeer la isku dhufto waxa la yiraahdaa waa ever waxa la yiraahdaa 1 haddii laba jeer la isku dhuftana waxa la yiraahdaa waa 1 2 haddii laba jeer la isku dhufto yani waxa ka mid tahay 2 oo lagu dhuftay 2 waxay la mid tahay 4 3 haddii laba jeer la isku dhuftana waxa la yiraahdaa waa 9 4 haddii laba jeer la isku dhufto waxa iyadana waxa la yiraahdaa waa 16 yani waa hal 4 9 16 25 tirooyinka waxa uu soconayo dhan aduha waxay doon tirada hal lagu siiyay laakiin tirada wax markaas hadday qaacidada ay dabaqayso waxa la oranayaa tiradaasi waa square numbers baa leenahay haddii aan inta ka soo gudubno tirooyinka nooca kale arki doontaan waxa leedahay waa tirada loo yaqaano cubic numberska haddaba cubic numberska markaynu ka sheekayno waxa leedahay iyadana waxa lagu helayaa waa n divided by 3 yani hadday waxaan soo qaadan square-ka waxa lagu helayaa markasta n power 2 bay laakiin hadda waxaan isticmaali doonaa waxa la yiraahdo formulada loo yaqaano n power 3 haddii aynu soo qaadano marka qaacidada marka waxaan nidhi waa n divided by 3 maanta n waxa u qaadanaynaa inay tahay tusaale ahaan oo kale sifir n waxay la mid tahay baan leeyahay 1 n waxa laga yaabaa 2 n waxay la mid tahay 3 n waxay la mid tahay 4 yani haddaan qaacidada waa ever dusha laga saaray 3 yani ever 3 jeer haddii la isku dhufto waa ever yani hal haddii 3 jeer la isku dhuftana waxa la yiraahdaa 1 oo lagu dhuftay 1 oo lagu dhuftay 1 oo la mid ah 1 2 haddii 3 jeer la isku dhufto waxa la yiraahdaa 2 oo lagu dhuftay 2 oo lagu dhuftay 2 labada haddii la isku dhufto waa 4 ka markii lagu dhuftana waa 8 3 power 3 macnaheedu waxa la yiraahdaa waa 3 oo lagu dhuftay 3 oo lagu dhuftay 3 oo la mid ah 9 oo lagu dhuftay 27 afar oo lagu dhuftay 3 jeer waa 4 times 4 times 4 oo la mid ah 16 oo lagu dhuftay 4 waa 64 yani tirooyinka nooca haddii uu soconayso wax tirada waxa la oranayaa tiradaasi waa tiro cube numbers intaas marka waxa la yiraahdaa waa arki doontaan sidoo kale waxa laga yaabaa in aragtaan tirooyinka loo yaqaano triangular numbers yani iyagana waxa lagu helayaa waa n minus 1 divided by 2 waa n bracket n minus 1 divided by 2 noocaan iyadana waa lagu heli karaa qaacidadaas tiradu haddii dabaqayso tiradana waxa la oranayaa waa tiradaas waa khaasatan waxa isticmaali doonaa sidiska markii la gaaro qaacidadan waxa leedahay la isticmaali doono waa n oo lagu dhuftay n minus 1 divided by 2 hadda waxa isticmaali doonaa n waxa hada isticmaalo 1 oo kale waxay noqonaysaa 1 oo lagu dhuftay 1 oo laga jaray 1 oo loo qaybiyay 2 labada haddii la kala jiro waxa la yiraahdaa waa ever ever haddii lagu dhufto waa ever ever haddii laba loo qaybiyana waa ever n markay la mid tahay laba waxaase waa labo oo lagu dhuftay n maxaa laga wadaa n waxa laga yaabaa in ardaygu isweydiiyo n waxa laga rabaa tiro kasta oo lagu siin karo tiro kasta oo loo qaadan karaa n oo waa 2 oo lagu dhuftay 2 minus 1 oo loo qaybiyay 2 waxay la mid tahay labada haddii la kala jiro waxa la yiraahdaa laba haddii hal laga jiro waa hal waxa ku dhufataa labo waa labadeedii laba u qaybina waxa la yiraahdaa waa 1 n markay 3 la mid tahayna waxaan isticmaalayaa waa 3 oo lagu dhuftay 3 minus 1 oo loo qaybiyay 2 labada haddii la kala jiro waxa la yiraahdaa laba iga soo baxaysa laba waxa ku dhufataa 3 waa 6 6na waxa u qaybisaa laba waa 3 n markay 4 la mid tahayna waa 4 oo lagu dhuftay 4 minus 1 oo loo qaybiyay 2 afar haddii laga jiro waxa la yiraahdaa waa 3 haddii 4 lagu dhuftana waxa la yiraahdaa waa 12 12 markii laba loo qaybiyana waxa la yiraahdaa waa 6 yani tirada haday ku socoto eber hal 3 n markay 5 la mid tahayna waa 5 minus 1 divided by 2 oo la mid ah 5 markii laga jiro
shan markii hal laga jaro waxa leedahay waa afar afar markii shan lagu dhufto waa 20 20 laba markii loo qaybinayo waxa leedahay waa 10 يعني tirada hadii u socoto nidaamka eber hal 3 6 10 15 baa ima doonta aakhirka hadii nooca ay ku socoto tiradana waxa leedahay waa triangular numbers waxaan la isticmaali doonaa markii la gaaro waxa la yiraahdaa statistics